wuxuu ku leeyahay qodobkaasi 3 jeer ilmaha ha ka cadhaysiinin iska jir haddaad ka cadhaysiisana waa inaad ka baabi'isaa waa 3 jeer ee la leeyahay ilmaha cadhada ka ilaali waa marka aad doonayso inuu wax barto had iyo jeer waana 3 jeer ee ay cadhadu inta badan dhacdo ee qoysaska dhexdooda ka dhacdo marka aad tiraa wax akhri inta badan waxaa dhacda inuu ku diido aanu jeclayn marka tiraa wax akhri way dhacaysaa markaa inuu cadhoodo oo aad ku khasabto laakiin isagoo cadhaysan ha ka tegin oo ha ka filin inuu wax ka barto uma wax akhriyo waa inaad isku daydaa markaad cadho ku keento miiska buugaagtii u soo dhigto inaad cadhadii haddana ka baabi'iso u sheegto sababta aad u doonayso inuu wax akhristo iyo faa'iidada ku jirta dabeetana isagoo ku qancay ood cadhadii ka saartay markaa ha bilaabo waxbarashadiisii markaa uga tag qodobka marka labaad ee iyaduna loo baahan yahay inaad ay cadhadu inta badan dhacda iyadana loo baahan yahay inaad cadhada ka baabisaa waxa weeyaan iyana marka ay hurdada gaadho had iyo jeer iyagoo TV daawanaya ama wax ciyaaraya baa la odhanayaa waa xilligii hurdada seexda markaana way dhaga adaygaan halkaana inta badan dagaal baa ka dhacay iyo dagaalo leeyahay seexo marka ilmuhu cadhow ku taga sariirta taana waa inaanad kaga hadhin oo aanad markaad sariirta u dirto aanad halkaaga kursi iska fadhiisan ama aad qolkaaga iska gelinay waa inaad la gashaa waa inaad cadhadii ka baabisaa waa inaad u soo sheekaysaa waa inaad uga sheekaysaa sababta aad u kicinaysa aad goorta hore seexo faa'iidada ku jirta marka isagoo ku qancay oo aad ka baabiisay oo aad soo dhunkateen waa inaad ka timaadaa xilliga kale saddexaad waxa weeyaan iyana cadhada laga ilaaliyo ama hadduu cadhooda laga baabiiyaa waa xilliga subaxii iyo iskuulka la aadayo had iyo jeer halkaana waxaa ka dhacda waarka kabaa xidho sidan yeelba iska daba wareeg baa dhaca cadha halkaa ka dhalata ilmihii markaa hadduu cadho iskuulkii ku tago waxaa dhici karta inaanu si wacan maanta waxba markaa usoo qaadan karin marka waxaa fiican markaana inaad cadhada kasii baabiiso oo aad sii maslaxdo oo aad usii sheekayso oo aad ka taxadirto maxaan idhaahdaaye inaanu ku tegin cadho